بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daawadayaal waxaanu barnaamijkii hore kaga jawaabnay weydiimo aanu isniri bulshada inta badan waa iswareystaan oo ku saabsan gabayada iyo heesaha maxay ku kala duwan yihiin heesaha halkay ka yimaadeen marka la sameynayo maxaa laga sameeyaa ma geeraar baa laga sameeyaa waataanu kaga jawaabnay geeraaradii ka yimaadaan gabayadii ka yimaadaan buraanburkii ka yimaadaan qaybaha kala duwan ee suugaanta ayaa heesuhu ka yimaadaan geeraarka oo aanu hore u sheegnay waxaa laga sameeyaa heesaha yaa maanta waxaan eegaynaa bal heese ma ogiya wax kale oo ay geeraarkii laga sameyn karo ciyaaraha halkay ka yimaadaan ma jiraan ciyaaro beydad ka la qaadayo ay isu dhow yihiin ama isku mid yihiin geeraarka waxaanu daawadayaal soo qaadanaynaa geeraar uu curiyey halyeygii wadaniga ahaa maxamed ismaaciil barkhad cas oo lagu soo hoorinayay aan ooye albaabka ii xira waxaana u soo qaatay abwaankaas wuu mudan yahay in taariikhdiisii la ogaado 1900 iyo kontameeyadii aakhirkeedii ayaa waxa waqooyi tagay boqorada ingiriiska adeerkeed Duke of Gloucester ka oo ujeedada safarkiisa uu ahaa in uu soo furo mataar weyn oo mustacmarada ingiriiska ee ka furtay ee ka dhistay Hargeysa iyo ujeedada labaad safarkiisa waxay bal in uu soo ogaado dadkaas mustacmarada ingiriiska hoos yimaada sida ay raalli uga yihiin ama sida ay u diidan yihiin haddaba imaanshihiisii ayaa barkhad cas waxaa laga codsaday in uu tiriyo geeraar uu ku soo dhaweynaya ninka ajnabi ee martida ah ee boqorada ingiriiska ah wafdigana ah oo jagooyin badan isku darsaday in uu ku soo dhaweeyo geeraar uu tiriyo wuxuu yiri marka isagoo ku halqabsanaya walaalkii aadan ayaa wuxuu yiri awowgay ninkii indhaha tiray ninkii aabahay adoonsaday ninkii anigana iibsaday ninkii ifka igu adduun tiray iidaan liibaa ishaa ibidee haddaan ogahon ka aarsan kareen haddaanan aadanow unun ka jareen ninkaa araggiis uurkan ka necbe aan ooye albaabka ii xira waxaa marka uga jeednaa in geeraarkan aan ooye albaabka ii xira laga dhigi karo ciyaaro iyo wax kale loo bedeli karo iyadoo isla mirihii la adeegsanayo waxaan soo qaadanaynaa beydadka ugu dambeeya hooriska ninkaa araggiis uurkan ka necbee aan ooye albaabka ii xira taasaa calaamad noo ah iyadaanu isugu imaanaynaa marka hore waxaan ku dayaynaa bal in aan dhaanta ka dhigi karno inkastoo aan dhaantada aanan garanayn haddana si ugu yaraan aan u qancino daawadayaasha waxaan isku dayayaa in laxankii dhaantada aan yara qabadsi waxaa oranayaa mid walbana waxaan xusuusno ku soo horinayaa aan ooye albaabka ii xira ninka araggiis uurkan ka necbe aan ooye albaabka ii xira dhaantada waxaa oranaya galbeed baabuur safar dhulka ahaanu marka hore ku bilaabeynaa waxaan tagaynaa galbeed iyo jigjiga oo aad u qurux badnaatay culayskii badnaana uu ka degay yaan tagaynaa waxaan awowgay ninkii indhaha diri ninkii aabbahay adoonsaday ninkii anigana iibsaday ninkii ifka igu adduun tiri iidaan la ibaa ishaa bidde haddaan ogahon ka aarsan karin haddaan aadano ununka jirin ninkaa araggiis uurkan ka necbehe ninkaa araggiis uurkan ka necbehe ninkaa araggiis uurkan ka necbehe aan ooye albaabka ii xira ayaa ah barkulanta aanu isugu imaanayno markaan dhaantada halkaa kaga soo rogno baabuurka iyaga intaan shidaal ku soo shubanno aan soo aadno bal hargeysa oo heesta ay ku qotontay waxaan qabadsiinaynaa heesihii qaraamiga ninka araggiis uurkan ka necbehe aan ooye albaabka ii xiro waa heesihii qaraamiga kulli isku beed waa la qabadsiin karaa cismaan gacan loo allahna xoreysa aan soo qaadano tufaaxa ku yaala tulmumban tufaaxa ku yaala tulmumban tufaaxa ku yaala
لطول مهمبان يلين أبيه والبوتابو ليهاي ninka aragiis uurkan ka necbe inaan qabatiin karnaa isku dayno ninka aragiis uurkan ka necbe ninka aragiis uurkan ka necbe يلين aan uhuye albaabka ii xiro baabuurka inoo dhaqaaji waxaan aadaynaa gobollada koonfureed intaa baabuurku uu sii socdo markii aanu gaarnay gobollada dhexe bal ciyaartii aan fiirina la oran jiray goobile ma haleelow iyo haleelow iyo haleelow iyo haleehaa gabdhaha yaqaano oo ciyaara haleelow iyo haleelow iyo haleehaa ninka aragiis uurkan ka necbe haleehaa aan ooye albaabka ii xira haleeha iyana saas ayaan u qabadsiin karnaa gaadiidkeenni aan wadanaa waa soconaynaa waxaa ii muuqda baar dhaadheer oo qurux badan aleleh waa hiiraan hirshabeellaanu madaxa soo gelinay waxa ay ku caan tahay ciyaaro fara badan oo kala duwan balse waxaan soo qaadanaynaa ciyaarta gaalaysada oo farac iyo asal bay leedahay lagu tiriyo meelaha asalka oo ah hiiraan waxay u dhacaysaa mar walbana xusuusno waxa aanu muraadka iyaga yahay ninka aragiis uurkan ka necbe aan ooye albaabka iyo xira in la qabatiin karo waxa kan iyo in kale waxaa soo qaadanaya ciyaarta gaalaysada waxuu oranayaa awowgay ninkii indhaha tiray ninkii aabbahay addoonsaday ninkii anigana ii iibsaday ninka aragiis uurkan ka necbe aan ooye albaabka waan boodi gaaray inaan kuraasta jibaan ka cabsaday qaar badan baa huba inay boodayaan waqti kale ciyaartaa gaalaysada aan baabuurka iyaga kaxaysano bal xaggaa iyo banaadir nalalkeedii baa noo muuqda iyadii oo dhibtii iyo dagaaladii iyo wixii ka raysatay oo aada u ifaysa kaaheedii jawhar markaanu in yar soo dhaafnay waa noo muuqdaa insha allahu markaan soo galnay maxaa qabadsiinaa waxay leedahay suugaan fara badan dadkan reer banaadiriga suugaan kala duwan bay leeyihiin dadkan kale xamar gudihiis dega iyo kuwa xamar dayadaga intaba suugaan fara badan bay leeyihiin waxaa igu soo dhacay cali jareere allahu naxariistay heestii uu qaadi jiray alam dhe alam gariir dhe dadkii horaa garan karaan u malaynaya waxay oran jireen xaliima yare xalay dhalatay halkee xulbad looga doona iyo lugbaanka jabo ma luudi kare luuley landarobal ii keen alam dhe alam gariir dhe goodirow rig dhe balow dhe baar baxayd alla lacanta miyaan lada calale ninka aragiis uurkan ka necbe aan ooye albaabka ii xira alam dhe alam gariir dhe goodirow rig dhe balow dhe baar baxayd alla lacanta miyaan lada calalemo la'aanta miyaan lada aan kaxaysano kismaayo oo ayaamahan iska yara mashquulsaneed baa ina tabayso waxay leeyihiin war macalinka muxuu inoo ilaabay inta qaska ee ka dhexbaxaysa intaan ka dhex duso aan waamadii hoose u gudbo suugaan fara badan bay leeyihiin weliba heesaha la yidhahdo jiibta oo u khaasa dhalinyarada jiibtu waxay inta badan dhacdaa marka lo' bay dhaqdaan dadkaasi lo'da lasoo xareeyo oo xirada lagu hubsada ayaa wiilka guurdoonka gabadha uu doonayo siyaabo badan oo la isugu ammaan waa jirtaa laakiin waa hab la isku shukaansaday ka mid tahay iyada qudheedo wuxuu samaynayaa wuxuu soo fariisanayaa gidaarka gabadha uu jeclaa ama mooradii lo'da ay ku lisaysay ama ay dhiilaha ku culaysay yuu soo fariisanaya isagoo u muujinaya jaceylkiis waa lagu ogyahay cidna ku ceebeen mayso ama barkin buu halkaa gashanaya ama maradiis intuu duuduubto ayuu madaxa gelinaya ama caadi buu u fariisanaya caaw dhan gabadhaas ammaanteeda ayuu haynayaa masalan marka uu jiibta ku ammaanaya timaheeda oo kale wuxuu odhanayaa timaheeda seengarile sagaal beriya lasoo haye timaheeda seengarile tima seengarile sagaal beri baa lasoo haya ma timihii macalin bashiir baa ise dharkooda 9 maalmood baa timaha waa la hagaajin marka la yiraahdo yaa lasoo hibu yiri wuxuu oranayaa kolkay socoto suuqa
lala yaab ye ragoo idil waa sarqaamaye aanu isku dayna marka beedka hargeysa ka soo ergeysanay inta aanu soo wadnay ee dhaantada aan geyno haleelooda aan geyno gaalisada geynay oon xamar iyo cali jareer u keenay allah u naxariistee ee hadda jiibta inoo maraya in aan qabatiin karno wuxuu ahaa ninka aragiis uurkan ka necbe aan ooye albaabka ii xira waxaan oranayaa ninka aragiis uurkan ka necbe aan ooye albaabka ii xiro waxaan filayaa shidaalkii halka inuu iga dhammaaday reegadana isoo fiirinayaan iyagana ciyaaro fara badan oo dhaqan iyo hiddo oo maasha allahu aada u wanaagsan oo aada u fara badan bay qabaan waana si fiican oo qoto dheerna waan u aqaanaa weliba gobolkaas shidaalkaa iga go-ay waamo inta aanu mar kale ku kulmayna barnaamijkan oo kale waxaan dhammaantiin idinku dhaafayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu